in qofka muslimkaahi uu noqdo ku dadaalo mid dadka wax tara oo dadka anfaca acmaasha uu qabanayana mudnaanta koobaad siiya camalka iyo weedha dadka wax taraysa oo uusan noqon qof ku dadaala ama hamigiisu yahay isaga tiisa keliya inuu wax taro acmaasha badan ee looga baahan yahay iyo hamigiisu inuu xambaaro humuumta iyo dareenka dadka kale ee mudan garabka iyo hiilka iyo waxtarka taas waa ta lagu garto astaanta qofka ummaddu u baahan tahay ee aynan ka maarmin nabiga sala allahu alayh alih wasalam markii qaaru xiraa jibriil ugu yimid ee markii ugu horreysay ahayd ee lagu soo dejiyey suuratu alcalaq bilowgeeda isagoo aada u naxsan oo cabsanayo guriga ku soo laabtay waa ki yidhi ha la idado waxoogay argagixii markuu ka tegey waa kii khadiijo u sheegay inuu maalinkaa cabsaday say wuxu dhaceen markuu u sheegay khadiijo qof diimihii hore wax ka yaqiinay sida adeerkeed maynan ahayn laakiin nabigay taqiinay qof ummadda waxtar u ah inuu yahay erayaday tiri waxay idhi fi saxiixi albukhaari xadiidka badul waxyiga wallaahi laa yukhziika allahu abadan ilaahay marna meel xun kuma dhigayo meel xunna noloshaadu kuma dambaysiinayo maxaa sababa innaka taxmilu lkalla dadka culayskoodaad qaadaa qofkay duruufi ku habsato hawli ku adkaato wixii uu qaadi waayey baad culayska la qaadaa waxaad kaalood samaysaa wa taksibu lmacduum qofkaan waxba haysan ee waxba waayey ama noloshu ku adkaatay ama farqaha lagu dhegan yahayna waxbaad la raadisaa si wax u heli lahaa waxaad haysaad siisaa ciddii wax haysataad kala raadisaa hawshiisu say u fududaan lahayd baad kala shaqaysaa wa tuciinu waxaa ka mid ah calaa nawaa'ib alxaq dadka laga gardaran yahay ee magaalada ku dulman ee qabiil loogu awood sheegto talo iyo muuqasho loogu awood sheegto dadka madluumiintaana garab baad u noqotaa intaa tilmaamaha haddaad wada eegto waa tilmaamaya bulshada nacfigu u leeyahay qof waxtaraa tahay qof dulman qof duruufaysan qof xaaladii ku adag tahay dadka culayska haysta qof la qaadoo waxtaraa tahay taasaan ku garanayaa bay tidhi aan ilaahay meel xun ku dhigaynin waxaanaad aragtayna uusan shar iyo bala ahayn markaa kadib bay waraqa u geysi sidaasay ambiyadu ahaayeen ridwaan ullaahi calayhim nabiyullaahi muusa calayhi salaam markuu fircawn ka qaxay ee ka cararay weli rasuul lagama dhigin laakiin ambiyadu inay dadka waxtar u noqdaan baa ilaahay ku tarbiyayaa tusiyaa intaanay nabiba noqon bay bulshada waxtar u noqdaan nabi muuse waa soo qaxay madyan buu yimid walamaa warada maaa madyana wajada calayhi ummata min annaasi yasquun wawajada min duunihima imra'atayni taduudaan qaala maa khatbakumaa dadkiioo xoolo ooman ceelka ka wada waraabinaya oo la isgarab ordayo oo la isdaba marayo oo qof walba xoolihiisii la ordayo wuxuu arkay laba haweenoo gabdhoodu meel cidlaah xoolaha ku celinaya meeshan xoog baa shaqaynaya ninkii xoog leh markuu xoolaha waraabsado bay inta itaalka darani wixii biyaha u soo haray iyo waktiga u soo hara ay wax ka raadsadaan laakiin waktiga fiican iyo xoolaha la daryeelayay iyo waxba kuma laha waxa uuse ma yaqaan ma garanayo meesha dhanba qofna kama garanayo koytana wuu ku yahay halkaasoo kale qoor waxaad ka fikiri lahayd war qoladan masaakiin weeye dadkaa wax haysta iyo xoola haysta iyo dhex oradoo meelaad ka cidgashay iyo taada tayrtii qofka tiisam hormarinaya ee ka walwalayaay
xaggaad ka cidgashaa caawu ka fikri lahaa laakiin waxaa kala duwan qofka ilaahay u diyaarinayo ummadda humuumteedii iyo baahideeda inuu xambaaro iyo qofka isaga tiisa uun hamigeeda xambaarsan muuse wuxuu qabtay waxay ahayd fasaqaa lahuma waa u waraabiyey laakiin waraabinta ma daba oolin maxaad ii ogoshihiin kusoo rida idinka waxbaan idin qabtaye ani maxaan idinka helayaa ma ahayn fasaqaa lahuma xoolihii buu u waraabiyey waa siday u galban doonaan wakti ka hor ay galban jireen kadib wixii uu u baahnaa geedkuu aadayoo ilaahay uu baryey ilaahayna faraj waa u furay laakiin muhimaddu nabi muuse calayhi salaam ilaahay risaalaa loo diyaarinayay 10 sano kadib bay risaaladu ku soo degi doontaa markuu muddada dhammaystee laabto laakiin waxaa ilaahay u diyaarinayay inay xambaarsan yahay qofku hamiga ummadda inuu wax taro waxaad dhibayaay maxaad ka qaban kartaa dadka waxtar inaad noqoto ambiyadu saasay ahaan jireen nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam xabsiguu ku jiray markii riyadii meliga uu fasiray ee la yidhi ituunii bihi ii kaana markii uu yimid ee shubhadii iyo madmadowgii iyo sheekadii iyo meesha uu ka saaray waxa uu dalbaday waxay yidhi ijcalnii calaa khazaa'ini alard innii xafiidun caliim ummad abaaro 7 sano ah soo socdaan 7 sanoo roob iyo barwaaqaana ka horeeyaan oo u baahan keligeedna aan ahayne ummado badan oo ku xeerani ay abaaruhu ku habsan doonaan haddaan loo diyaar garoobin dad iyo dunyo 7 sano abaar oo xiriir waxba ma harayaan ummadan badbaadin bay u baahan tahay saa darteed buu wuxuu yidhi calaa khazaa'ini alard kaydka iyo diyaar garowga aniga ii dhib aqoonna waan u leeyahay aaminna waanahay si uu u diyaariyo 7 sano ee soo socota ummaddu 7 ka dambaysa si u badbaadi lahayd hambiga uu xambaarsan yahay aniga waa lay xidhay gardaraa laygu xidhay xuquuq baa iga maqan dadkii ha lai soo xidhxidha maaha aniga haddaan imid maxaa la ii ogol yahay maaha gorgortan maaha ummaddan maxaad tari kartaa humuumta ambiyada ahayd sababtoo ah ambiyada waxaa loo diyaarinayay dacwada inay xambaaraan ummadda mugdiga iyo gaalnimo laga badbaadiya adduunkeeda aakharana naar laga badbaadiya hamiga ummadda inay xambaaraan ayaa rabbi u diyaarinaya sidaasay ahaan jireen ambiyadu rabbi ugu diyaarin jiray qur-aankuna ina baraya nabigeenana sala allahu alayh wasalam wuxuu dardaaranada badan ee inooga tegay maxaa lagu kala fiican yahay sida loo wax kala tar badan yahay waxa la qabanaya muxuu ku kala fiican yahay si uu kala wax tar badan yahay si guudna waa inoo yidhi si gaar ahaana tusaalayo badan nabigeena sala allahu alayh wasalam waa inoogu sheegay tusaale ahaan nabigeena alayh slam xadiidkii jaabir wuxuu yidhi almu'minu ya'lafu wa yu'laf qofka mu'minkii waa qof dadku ay u soo istaagaan oo ay weheshadaan isna waa qof dadka weheshadoo dadka dhex gala walaa khayra fii maa laa qofkaan isagu dadka dugsanaynin oo gooni socda isna aan lagu soo hiranaynin oon waxtar iyo wehel laga rajaynayninna khayr ma lah kadib wuxuu yihi wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxaa ugu fiican ka dadka ugu waxtar badan uguma fiicna ninka duurka gala ninka waxoogay markuu helo xaafadaan la gaadhin dega ninka martida ka fogaada ninka dadka duruufaysan ka carara ninka dadka ka dhex baxa saa darteed annagu xadiid kale ku yihi mu'minka alladii yukhaalitu nnaasa wayasbiru calaa adaahum khayru min aladii laa yukhaalitu nnaasa walaa yasbiru calaa adaahum qofka muslimka ee dadka muslimiinta ku dhex jira dhibkoodana u dulqaadanaya wax taraya baa ka fiican qofka aan muslimiinta dhex gelaynin dhibna u dulqaadan karine ka cararaya duurkaa gelaya dadka araggooduba dhibayo oo meel la joogo markuu arkaba luuqa ka leexanaya intaan ishu qaban dhuumanaya ee cararaya kaas ilaahay khayr ha siiya iimaankiisa kullan wacda allahu alxusnaa way insha allahu hadduu iimaan yeesha laakiin yaa fiican wuxuu yidhi wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxaa ugu fiican qofka dadka ugu waxtar badan intee dadka waxtartay baa lagu kala fiican yahay saa darteed markii qofka muuminkaa la qiimaynayo waxyaabaha lagu qiimeeya waxaa ka mid a dadka muxuu taray
sidii dooniba waxtarkaasi ha noqdo mar kale nabigeena sal sallam xadiid ibn cumar kaa lamid uu leeyahay wuxuu yihi axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay qofka ugu waxtar badan wuxuu leeyahay acmaashuu ka hadlay marka waxabu lacmaali ila allahi sururun tudkhiluhu calaa muslimin camalna waxaa ugu fiican qof muslim ahood ka farxiso qofka in laga farxiyaay qof murugaysan wey qof tiiraanyaysan qofkaa murugaysan sababo badan bay yeelan kartaa in kurbadii laga faydo saa darteed buu qaybta dambe ee axaadiidka ku yidhi dayn inaad ka bixiso gaajo hayse iyo xanuunkii gaajada inaad wax siiso iyo tusaalayow badan buu bixiyey nabigu sal ly slam markaasuu laba arrimood buu xadiidkaa kusoo gebagabeeyey wuxuu uhi walaa namshiya maca akhii fii xaajatin walaalkay baahi uu lahaa inaan u raaco ilaa aan baahidaa la soo dhammeeyo axabu ilaya min an actakifa fii masjidii hada shahran bil inaan masaajidka nabigu waa ka labaad ee ugu fadliga badan xaramka maka marka laga tago salaada lagu tukaday mise u dhigantaa 100 salaa bil inaan ku ictikaafo raggeennii halkaa ramadaanka oo dhan cararayay agoontii masaakiinta oo gaajaysan inaan ruux raaco baahan oon wax la soo qabto oon dantiisa la soo fuliyaan ka jeclahay bil inaan masaajkaa ku ictikaafo ictikaafku fadligiisi iyo cibaado wanaagsan oo qiimo badan wey laakiin aday kugu eg tahay laakiin qofkan aad raacday eed wax la soo qabatay dad baad wax tartay mar kalena wuxuu yidhi xadiid qayb kalena wuxuu yidhi qofka raaca qof muslima dan uu leeyahay u raaca ilaa uu u soo dhammeeyo ilaahay baa lugihiisa iyo jawaabihiisa sugaya yowma tazuulu laqdaam maalinta qiyaame ee la wada sibqan doono ama fitanka waaweyn jiraan baa ilaahay xaqa ku sugayaa qofkii walaalkii raaca oo dantiisa u raaca oo la soo qabta ilaa uu la soo dhammeeyana aan ka hadhin marka saa darteed nabigu wuxuu ina barayaa sala allahu alayh wasalam inaad noqotod ilaahay ku caabudo dadka inaad wax tarto dadkuna ku kala qiimo badan yahay sida dadka wax loo taro acmaashuna u kala fiican tahay say u kala waxtar badan tahay mar kale nabigeena sala allahu alayh ali wasalam dadka la daweynaya xanuunsan iyo carabtu qaybahay samayn jirtay baa looga sheekeeyey qolo walba say wax u daweeyaan ree hebel baa waxaa ka tufa waxaasaa lagu aqriyaa kaas geedkaasaa la mariyaa xanuunkaa waxaa yaqaana qoys ree hebel la yidhaahdaa xanuunkaa si loo yaqaana kubaa lafaha si loo kaba yaqaana waxyaa badan baa laga sheekeeyey oo munaasabadda xadiidku u badnaa arrimo caafimaadka iyo dawooyinka iyo dad yaqaana iyo dad wax daweeye hadal kooban buu nabigu calayh salaatu wasalaam soo jeediyey oo wuxuu yidhi man istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyafcal qofka idinka midoo awooda walaalkii inuu wax taro erey baad wax ku tari kartaa jid baad u tilmaami kartaa xoolaad ku bixin kartaa wuxuu u baahnaa aqoon ahaabaad siin kartaa maal baad siin kartaa cid dhibaysaad kala hadli kartaa waxay dooni ha noqoto si guud nabigu wuxuu yihi man istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyafcal qofkii awooda walaalkii inuu wax taro weli waxa yeela maqli maysid waxa yeelin walaalka maahane waxa taro qofka wax taraysaa darteed baad ku noqon axabu nnaasi ila allahi anfacahum linnaas mar kale nabigeena sal ly slam xadiid anas ibni malik wuxuu leeyahay dadku waa laba qaybood baa dadka ka mida ina min annaasi mafaatiixa lilkhayri maqaaliqa lishar dad waxaa jira albaabada khayrka fura iyo qof waxaa albaabada dhibkana iyo beledana xidho ka hortaga iyo qolyo kale oo naarafuufa oo bale iyo fidno ka shaqeeya dadkuna waa la kala yaqaanaayoo dadku ay ku kala baranayaan ruux markuu yimaado fadhiga maanta xaajada inay qasantaa loogu talagalay ama ree hebel markay hebel keeneen xaajada qas bay ku talagaleen la yidhahdana reeruhu way leeyihiin dad markay yimaadaan in xaajadu xal iyo wanaag iyo nabad iyo khayr la raba yahayna dadku waa leeyihin lidaalika xudaybiya nabigana sal l slam iyo saxaabada markii laga hor istaagay inay maka galaan
wada hadal dheer oo wareegyo badan maray baa dhex maray nabiga iyo nimankii Qurayshaha. Qurayshtu qabaa'il kacdoon isu keenay iyo cara iyo la soo abaabulay ahaayeen. hal hoggaan mayna lahayn oo qabiil walba gees buu fadhiyay. qolo waliba waxay rabtaa iyaga ninkooda odayga bal meesha intuu tago inuu wada xaajoodka ka soo qayb galay reer hebel baa idin hadlay lama ogola meesha. nin baa la soo diraa nabiga waxaa loo soo sheegaa intuunan soo gaarin war waa kuma waa hebel. nabiguna dadka waa yaqiin cidii mas'uul iyo hoggaan noqonaysa dadkan ay si fiican u taqaanaa wanaagsan. hebel baa soo socda wuxuu yiri kaasi khayr ma soo wado. hebel baa la soo diray kaasi saasuu ku fiican yahay. mid marka la soo diray wuxuu yiri talbiyadana ku dhawaaqa geeli calaamadii xajka ka muuqatana hal la istaajiyo. ninkii markuu arkay war badan ma gelina uu noqdo dadkan beedka Ilaahay u socdo maxaa laga rabaa uu yiri. waa yaqiin nabigu ninka waxa saameyn ku yeelanay. markii dambe waxa soo baxla soo diray dheeraata la isku rafaaday bani Suhayl ibn Amr la soo diray. rasuulka Ilaahay waxa soo socda Suhayl wuxuu yiri sahula amrukum arrintu way fududaatay. hadda nimanku haday Suhayl soo direen nabad bay rabaan iyo xaaja fiican. marba ninkay soo direen Suhayl yahay nin Mikriz ibn Hafs la yiraahdo ka horeeyay la soo dirayna kaasuu wuxuu yiri shar mooyeen wax kale lama yimaado. markii Suhayl la soo dirayna wuxuu yiri nabigu hadayba Suhayl hadda soo direen Quraysh nabad bay rabtaa wanaag bay rabtaa haddaynu wax wada gaari karnaa. waa ninkii heshiiska Xudaybiya nabiga la galay sallallahu alayhi wasallam. marka dadku mafaatiixa lil khayri maqaariqa lil sharri baa jira. dad markay fadhiga yimaadaan fidna ka shaqeeya oo buuq iyo qaylo iyo belo oo naarafu baa jira. kuwa khayrka iyo samaha ka shaqeeya qofka muuminka maxaa laga rabaa maqaaliqa mafaatiixa lil khayri maqaaliqa lil shar. qof khayrka albaabadiisa fura umada waxtara sharka iyo baladu umada dhibaysana xira. nabigu markuu kii kalena wuxuu sheegay waa inna min annaas mafaatiixa lil sharri maqaaliqa lil khayri kuwa albaabada balada fura wixii sama iyo wanaag oo dhan ciida ku rogaa jira. wuxuu yiri fatuuba waxaa jannada iyo abaalkeeda weyn iska leh qofka Ilaahay uu ka dhigay mafaatiixa lil khayri maqaaliqa lil shar. qofkaas janno weyn helaya qofkaas darajo weyn allaagtiisa kale. intaasi waa tilmaamaha guud ee nabigeena sallallahu alayhi wa sallam uu ku tilmaamay in la inaga doonayo inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaano acmaasha. tusaalayo badan baa leena siiyay labada muslimiinta ah ee isku duruufta ah. jihaadka markuu Ilaahay ka hadlayay la yastawi alqaa'iduuna min almu'miniina ghayru uli ad-darari والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. labada muslimkaan midina dhib gaara qabin ma xanuunsana qof curyaana maaha waa laba isku midoo jooga. midna nafiya maal buu ku jihaaday midna ma aadin oo gurigu iska fadhiistay. iimaanku waa wada khayr wa kullan wa'ada Allahu al-husna way. laakiin yaa fiican ma sinna. qofka naftiisa iyo maalkiisaba iimaanka dadka in la gaarsiiyo khayrka la fidiyo sharka iyo colka dadka iimaanka iyo amalkii saalixa hayay ku soo socda laga hortaga naf iyo maal ku bixiyay. waxa nafka iyo maalka jihaadka loo bixiyaa laba mid way. in dad Ilaahay rumeeyay oo la dulminayo cadow ku soo duulay laga dhicinayo iyo qolyo laga hor istaagay iimaanka iyo tawxiidku inuu gaaro in laga xoreynayo si ay iimaanka iyo tawxiidka aakhiriya dunbu helaan oo nacfiga adduunna ku badbaadaan aakhirana ku badbaadaan baa ama lagu xoreynaya ama kuwa xoroobay baa lagu difaacayaa. jihaadku markaa talab ha noqdo ama dafci ha noqdo labadaba dad baa laga xoreynayaan min cibaadati al-cibaadi ila cibaadati rabbil cibaadi loo xoreynaya. dadka ummadda diintu gaari lahayd ee laga hor istaagay nafci adduunyo aakhira laga hor taagan yahay. sadarteed baa labada ma sinna. qof ummadan badbaadadeedu waa nafci kuwa dulmiga iyo shirkiga ka xoreyntiisuna waa nafci labada daarooda. qofka maal iyo nafba ku bixiyay iyo qofkan ku bixinin iimaankiisu waa anfacaya laakiin dad wax taray inima waxba tarin
أنفعهم للناس بإله التعليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلى آخر كيس تصالى يهدد باطر أو تصالى بحنه وماذا وحاو فضل بدن أنبياء إلهنا وحوجت عليه هي أنبياء ديس وحوجت على هذينا ورسالة الدعوة هي الدين تأوجارسية ضد كان عمل لقبته ونعف بدن والدعوة هي الدين تولا فيه روح عنا للسيء وحكفي عن عذاب آخرين لقبت باديه رزق إلهي وقراني والبحبوه لاي واديري هذا قدرت أذوقنا عمل نعفي واحتري وقيمة بدن وهداية هانون دادات جارسيسو صدرت بالله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وحكفي عن متشره صدرت بيومد إلهي وحوجتش عليه هي أنبياديس أنبيادو وحي قبتان التاريخ ذا لغو حسيو كتابته كل شيء جيان لقد دحليو حولا ما والنبي قال بينه شيء جاي أنبيادو مركو يا العلماء ورثة الأنبياء أنبيادو دحلك لقد دحل يحكون معها ما لي حولنا معها إنما ورثوا العلم علم جاي دحشيين كلجا كودا قن ما هي دين تعلق على دحليه ومدى لجارسينيه لجودبينيه بي دين تجارسيين صادرت الدرجة أنبياء إليه وابن آدم أبيه هو يعدلي أنت لو قد شيء قد شيء سيد الله أنت لمن أيان إنما أنا بشر مثلكم محي درايان يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلى سنة ضدك محي درايان إن رسالة هي دعوة هي دين هي إيمان أي جود بنيات صادرت عمل كنفع جود بيه مركي إيمان كنقطه إيمانك اللي قد بيي dadkiina aad wax ugu tartay baa ka qiimo badan iimaanka adigu aad iskala fariisatay ee rahbaaniyada iyo duurgalka la noqotay iimaanka aad tiri masaajidkan kaliya iska fadhinaya markaan soo baxana gurigeygaan ku ekaanaya waxa ka khayr badan iimaanka kugu xambaaray inaad gudbisay isaga laftiisa iimaan jaabka damba la gashaday iyo iimaan dadka loo qaybiyay oo ummadda la gaarsiiyay kala qiimo badan acmaashu markay sidaas oo kaleeto darajada wujuubka iyo sunnanimada ama baahida loo qabo daruuro iyo xaaje iyo lamidka ay ka siman tahay say u kala gudbis nafci badan tahay ay u kala mudan tahay dadaalka sadarteed ilaahay subhanahu wa ta'ala mar kale ina yiri markii dacwada laga hadlayo inaga maxaa ina yiri ali markuu diray khaybar u diray خيبر نما يهودي هايين نما كدب كبنانا way ahaayeen balamihi oo dhanna way ka baxeen dib badanna waa geysteen ujeedada ciidankii ku baxay ma ahayn ciila qabo iyo in lagu cara furfura ma ahayn nabiga ciidanka markuu diyaariyay oo yiri ilaahay jecel yahay ilaahayna jecel ilaahay rasuulkiisu jecel yihiin isagana jecel baan u dhiibayaa لكن والبلوغها فرهودا كو استاغي له ما انت اديك كادك سي لولا علي وحنونسن اندها كحنونسن اما بكوره اما داف دو وحي لكن نبي انتو كغا توفير عيدان كان ركع لكن وجهددو عيلي عربح معها لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم xoolaha xilliga loo jeclaayay geel cascas buuxa geel casas baa loo jeclaa magaalada hadda maxaa loo jecel yahay hantideeda guryo villooyin iyo gawaari V8 iyo wax lamida waxa soo dhan waxa ka khayr badan hal qof oo ilaahay dartaa ku soo hanuuniyay gaarigaagu adiga wata gurigaagana aad daga laakiin qofka ilaahay ku soo hanuuniyay iimaan baad gaarsiisay adduunkana waa anfacay aakhirana waa ku badbaaday adigana wax kasta oo uu sameeyo oo khayra bil baa kaaga qoran waa lagu qori mid lamida kiisa wax la yeeli maayo laakiin adigana hal qof baa tay amal sameeya inta ilaahay kugu hanuuniya ajirkooda kala lagu qori sadartay laan yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humri an-na'am sida xadiidka la waaqiya man da'a ila hudan كان له من الأجر مثل أجور من تبعه
qofkii dadkii hanuunka ugu yeera inta hanuunka ilaahay raacada qaadata ajir waxay sameeyaan oo dhan ajir lamida lagu qori salaadu tukada salaad baa lagu qori faradkii waa farad sunnadii waa sunno ila aakhirkiis sadarteed baa inaad dacwadan gudbisaay unkoo dhan baa kaaga mahad celin ma doonayo mawduuca dacwada inaan ka qaato laakiin waxaan rabaa inaan ka tilmaamo dhinaca sayq islaamku qiimo ugu yeelay waayo waxtar dad kale way oo nabiga calaihis salaam uu yidhi malaa'igta xataa kalluunka iyo malayga badda ku jira waxay ilaahay dembi dhaaf u weydiisaa oo u ducaysaa calaa mucallimi nnaasa alkhayra dadka khayrka iyo wanaagga dadka bara amrun bimacruufin wanahyun can munkarin iyo dacwadu maxay u saa u noqoto darajadaa u heshay adiga ilaahay baaba ku hanuuniye khayrkiina waad samaynaysaa laakiin ummad baa halaagsamaysa adduunkana dembi ku halaagsan aakharana cadaab ku socota ummadda inaad ka qaqabato cadaabka oo nabigu suu ku tilmaamay salaam waxaad la mid tihiin nin dab shitayo xayawaanka yararka ee shimbiraha baabaalaleyduna ku daadanayso isaguna ka celcelinaya dab ku gubanayaan dab lagu gubanayaa dadkii ka celcelinaysaa waxtarkani waa ka qiimo badan yahay qof gaajaysan oo wax la siiyey iyo qof xabsi laga soo daayay iyo kana ka midho badan oo adduun iyo aakhara labadaba leh saa darteed dacwadu waa acmaasha nafciga mutacadiga ee dadka wax taraya waxaa ka mid a nabiga alai slam markuu qur-aanku iyo sunnadu ka sheekeynayaan sadaqaadka jannada waxaa lagu galo ee ugu waaweyn dad baahan oo loo gurmadaa ka mid a suurat lbalad falaqtaxama alcaqaba wama adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw iطcaamun fii yowmin dii masgaba yatiiman daa maqraba aw miskiinan daa matraba iimaan iyo toosnaan bilahi hadduu ku siiyo jannadii waxaa lagu matalay oo dhagax ama buur ama meel adagoo ka degis u baahan ay kaa xigto dhinaca kale ay meeshan adagee la fuulayo bay dhinaca kale kaga taallaa inaad gudubto unbaa kuu dhiman markaasaa la tusaalaha la bixinayo buurtan iyo dhagaxan adagee laga gudbayo bixinta xoolaha wey xoolaha naftii baa jecel wuxuu usoo dhintay oo usoo dhididay oo inuu baahan yahay uu dareemayo xoolaha bixintoodu carabtu waxay dhahdaa aljuudu qaطcu min aljuluud deeqdu jirkaagood goynaysa wey way xanuun badanta intaad mindi qaadata jirkaaga inaad goyso deeqsinnimadu inaad wax bixiso carabtu saa darteed waxay dhaha waa geesinimo haddii lagu yidhaahdo hebel waa bakhayl hebel waa deeqsi haddii lagu yidhaahdo markaaba waxaad ka garan geesiin u yahay geesinimadu xoolaha ku bixiyey dagaalna waa ku geli karaa way marka ruux xoolo bixiyey waa ruux geesi ah xoolaha bixintooduna waxay ka dhib badan tahay nafta bixinteeda saa darteed qur-aanku jihaadka markuu ka hadlayo nafta bixinteeda mar walba xoolaha bixintooda ka horeeya waxaan uga jeedaa aayaddani caqabadan la sheegaye ka sokaysa jannada adag ee la gudbayo waa go-aanka deeqsinnimadeed xoolo ku bixinayso kuna bixinayso fii yowmin dii masqaba xilli abaar iyo baahi iyo gaajo ay dilacday waxaad siinaysaa agoon qaraaba agoon waa ilmo yar abaariya baahi hadday jiraan ilmo yaroo agoon ana yahay maxaa la filaa inuu dadka ugu tabar daran yahay aw miskiinan daa matraba ama qof miskiinoon dabba shidan inuu dhulkaba ka kicila inaad maalinkaa xoolahaas waxaa dheer munaasabadda weliba xoolaha iyadoo la jeclaa markay abaari jirta inaad u sii cabsato ama ay kaa dhammaadaan aad tiraahdaay waa sii badanta iyadoo dhinacan aad cabsanaysa ama ay kaa dhammaadaanoo laftaadu gaajadu ku dubataa iyo ilmihii iyo reerahii iyo xoolihiina aad jeceshahoo dhib u martoo lala yahay inaad gudubto oo intaad ka tallaabsato miskiin dhul yaalla iyo agoon xigto oon dab loo shidin oon waxba haysan aada xoolo ku bixisood wax tarto kadib jannadii inaad u gudubto dalaq tiri baa laga dhigay agoonkii tabar daraa marka waa kii la marna waa kii la yidhi ana wakaafirulyataymi ka haatayni fi ljanna labadaa farood intay isu jiraan baan isu jiraa jannada maxaa halkaa loo gaarsiiyey dad itaal daran oon waxba tarsan karin wax tarka nacfiguu leeyahay wey sadaqadana waxaa ugu qiimo badan tii nacfiga dadka kala wax tarta
waxaad adigu cunto oo baahidaada ku daboosho ajir baad ka heli waxaad ilmahaaga siisana ajir baad ka heli wixii dad aad wax tartana ajir baad ka heli inta kale aad ku magacan adeegto ama way ku dhaafi ama waa lagaa dhaxli wadaa dhaafi labadaa mid uga ama adoo nool bayba ku dhaafi ama adaa intaad dhaafto ood dhimatay dad kala dhaxliyo aakharana kuuma aadin adduunna kaga tagtay sadaqaadka kuwa masaajidda fadligooda man banaa lilaahi masjidan bana allahu lahu baytan fi ljannati solama dhihin sabab imisaa masaajidii ku tukanaysa masaajidka imisaa ku tukan imisaa qur-aan ku akhrisan imisaa ku cibaadaysan imisaa daalan oo ku nasan imisaa ku weysaysan imisaa ku xaaja gudan imisaa mararka qaarkood ku qabaysan oo qabays u baahnaa masjidku inteebuu anfic imisaa musaafir oo ku nasan masjidku inteebuu nacfi bulshada u leeyahay waxaa wax looga ururin kuwii baahnaa dadkiibaa looga ducayn dadkiibaa wax lala qaban dhibkiibaa la iska wacdin diintiibaa lagu baran masjidkii aad dhistay nacfiga uu leeyahay dartii bana allaahu lahu baytan fi ljanna tusaale ahaan cilmiga la nashriyo oo dadka la baro kitaabkeeda la daabaco dugsiyadii qur-aankii khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama kii bartay keliya lama dhihin waxaa lagu daray wacallamahu dadka baray marka hore isagaa isku anfacay baahidii qur-aanka uu qabay iyo ku cibaadaystay markii labaadna dadka baray oo gaadhsiiyey intii qur-aanka baray inbay sii bartay kadib wuxuu noqon xadiidkii kale ahaa aw cilmun yuntafacu bih cilmi lagu intifaacayo anna cilmigaan baranayno sheekhani mid buu ka bartay kiibuu kuwuu ka bartay waqti kastoo la joogaba ummadii buu anfacaya qarni buu kasii tallaabayaa nin maal ku bixiye iyo barashadiisii iyo fidintiisana waa la mid oo jihaadkaba ninkii aadayey soo nabigu umar alay salaam qofkii qof jihaad aadaya maal geliya ajirkii ninkii jihaadka aaday buu leeyahay qof cilmigii baranaya oo fidinaya qofkii dhaqaalo ku bixiyana intaa cilmigaa fiday ajirkiisoo kale uu leeyahay oo cilmigii kii meel u diyaariyey sidoo kale saa darteed nacfiga gudbaya maadaama uu yahay baa ummadda waxaa ugu fiican la yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama waayo waxtar gudbayuu leeyaho dadku waxtaraya ummadduu qur-aankii baraya way ku cibaadaysanayaan way ku camalfalayaan axkaamtiisay baranayaan akhriya adduun bay ku liibaanayaan waxaa ka mid a on kusoo gabagabaynaya waktiga dhammaaday islaax daati ilbayn oo kale eg dadkaa is wada khilaafsan laba is dhashay laba wada dhalatay laba isu dhaxday laba qabiil laba xisbi laba kooxood laba deegaan laba maamul waxaa dooni dheh dadkaa muslimiinta iskhilaafsan acmaasha ugu khayr badan ee la qabto nabigu wuxuu yidhi alaa akhbirukum idin sheega biafdala min darajati asiyaami walqiyaami wasalaati wasadaqa sadaqa salaad iyo soon wax ka khayr badan ma idin sheegaa wuxuu yidhi islaaxu daati ilbayni dadkaa iskhilaafsan ee dhibku dhex yaallo in la heshiisiiyo wanaaggooda laga shaqeeyo la isu soo jiido ilaa la gaaray qofka shaqadaa haya beenta in la ogolyahay been inuu sheegaa la ogolyahay beentii xaaraanta ahayd saddexda xaalee la ogolyahay waxaa ka mida middan inuu isbeen fariimo oo yidhahda khayr baan ka wadaa wanaag buu ii sheegay uu ka shallaysnaa wixii wanaaggaaguu jeclaa uu ku soo ammaanayey wanaag iyo abaal buu kaa sheeganayay inuu isbeen fariimaa loo ogol yahay marba hadduu dadka heshiisiinayo islaax daat ilbayn baa ka mida islaax daat markaad dadka heshiisiso qoys baa heshiiyey laba wada dhalataa heshiisay laba is dhashay baa heshiiyey laba isu dhaxay baa heshiiyey qabaa'il baa heshiiyey dhiig baa badbaaday cirdi baa badbaaday maal baa badbaaday diin baa badbaaday ummaddii wanaag iyo khayr iyo nabad baa u soo hoyatay in laga shaqeeyahay waan ku rafaaday meeshan fadhi dheer bay qaadatay masaajidkan iska geliya safka hore aan ka daahsanahay waxaa ka fiican ka daah safka hore warniyow salaatuleylkiibaan saa hawshan ugu daalay salaatuleylka iga mashquuliyaan ha kaa mashquuliso tanaaba ka khayr badan salaadaad habeenka o dhan taagan tahay dadka nabad iyo heshiisiinta ka ajir badan waayo tanna aday kugu eg tahay tanna waxtar gudbaya way ummaddaa wax taraysa dhib baad ka hortegaysaa wanaag baad soo jiidaysaa
صادرت وحرب قفك مسلم كي إنه يشو لقنك ضدك وحتره أقون قدبي صدقة مال قدبي دعوة قدبي لبيه شيسي متبحد بمدى الأوده انت أذكاري كرته هل كاي كام مضطي كا قبصته مربى يكون مضن مرنا ولا يحكسن مربى مالك هو قبصن سؤال ضياش وحيد يصيرين بلايو وتيرر أذي كاغا دكت ده انت دبكو دنبا لغلو سؤالي دب كنا جرا كنا غاچيسن كنا سفرة كنا حنونسن لبدنا إسلاي هل كنا دب لغا سو شيغي هديب لكن إلهي أذي كا دغاي هكا ايغين دبكا يا عليسك فرصة بارا هيستا نعفي بدن يا وحتر بدن وددونا كل يبانت آخرنا كل يبانت ومدنا وحتر تأذيري كرتو هديب إلهي كا دغاي ومدي إني وحتر كاغا وباهنتهي إلهي باكو جاي منزله هي فرصة هي chances لغو باهن يهي أدنى أتقول في عنو الدنيا آخرك وأنفعه ومدنا وحتر سمين كرتو لما هو أركن يا عليس وحن عليس لهين مالا أنبيادو وحي الدرجة وين كو جارين عليس كان الله صاري ومدنا وحتر كونا ينا وهو استاجد أديك أنا عدادو استاجتو درجوين كواوين بعد جاري dadku ma wada helaan darajada ah dadkuna ay kugu kalsoonaadaan baahidoodiina ay kugula soo aadaan dantoodiina adiga ay ku soo bandhigaan waa darajo iyo fadli ilaahi bixiyo shukrigeeduna waa inaad u istaagto dadaalkeedii bixisood ka hawl keento haddaad samayn weydo dadku berri nacfi waxtar may tihid cid waxtar oo kale ay ku wareejisanayaan odaytinimadii adigoo lagaa guuray baad arki doontaa marka dambe ximba ku geliyo anaga odayaal baan maxana looga leexanaya ee markii lagu yimid adaa waxtar noqon way Soomaa hadaa waxtar noqon waydo cidii waxtaraysay dadku aadayaan noqo qofkii waxtari lahaa adduunkana ajirki iyo magac iyo sharaf kaga heli lahaa aakharana abaal iyo darajo weyn agtiisa ku heli lahaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dadka waxtarahay naga dhigo ku ummadooda nacfiga iyo waxtarkii kitaabka iyo sunnadu ina bareen جيلكي النبي كنا كبر باري صلى الله عليه وسلم سيدا أصلا الدنيا التوحيد ككو قارسيين هي دينتا إننا ينقصو قاعدي ضمن باصوحا بارا واحترك سو قد بيري إننا كوي واحترك ينعفك سي قد بي الله ينقدقو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك